طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. maanta oo ay tahay 8 February 2017 oo ah maalin taariikhi ah waxaan hadda shirkan u qabtay inaan ka hadloono hambaliyeeyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan baarlamaankiisa iyo shacabkaba guusha taariikhiga ah oo ah in maanta doorasho xal ah xaq oo xalaal ah oo hufan ay ka dhacday xarunta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Muqdisho doorashadaas oo maanta ku aadanay doorashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka cusub oo ku guuleystay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan doonayay inaan uga hambaliyeeyo guusha taariikhiga ah ilaahayna aan uga barino inuu la garab galo iyadoo garanayna wadanka maanta loo doortay sida uu yahay iyo culayska uu leeyahay iyo xaaladda wadanku sida ay tahay waxaan leeyahay mudane madaxweyne guul baan ku rajaynayaa xildhibaanadana waxaan leeyahay aad baad u mahadsantiin shacabkuna wuxuu idinka sugayaa adeeg tiro badan waxaa kaloo rabaa inaan una hambaliyeeyo una mahadceliyo madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka ee hore hadda xilka ka degaya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xaqiiq ahaan aan waqti dheer soo wada shaqeynay aan isleeyahay dadaal dheer ayuu soo maray iyo geedi dheer 4 sano iyo prime ministerkii hadda isaguna ka degaya xilka ee la shaqeynayay mudane Cumar Cabdirashiid Cali Salmaarke iyagana waxaan leeyahay guul taariikhi ay idin tahay meesha aad soo gaadhseen iyo sida fiican weliba u tanaasuseen inta waan idinku hambalyeynaya shacabkana waxaan leeyahay guul waxaan rajaynayaa 2012 kala Soomaaliya oo xor ah oo doorasho hal qof iyo hal cod inay ka dhici doonto inaan lagu tartami doono haddii Ilaahay yiraahdo aad baan madaxweyne kugu hambalyeynayaa adiga iyo xildhibaanada iyo shacabkaba waxaan isleeyahay waan ka wada hadli doonaa waxyaalaha culayska leh ee koor yaala iyo meesha la mari doono iyo wax badan oo maanta hortiina yaalo u baahan inaad wax laga qabto oo ugu horeeya amniga iyadoo wadankuna abaaro iyo colaado xooga nabadiidka iyo dhib badan oo maanta wadanka ka jiro intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan iyadana u tacsiyeeyo adduunku waa nin dhalanaya iyo nin la taaj caleema saarayo iyo mid dhimanaya madaxweynihii hore dowlad goboleedka Puntland Generaal Cadda Muuse oo isaguna maanta ku geeriyooday Dubai wadanka Imaaraadka Carabta waxaan leenahay Ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa reer Puntland iyo eheladii intabana sabir iyo Allah ka siiyo taariikh buu lahaa waa saraakiisha hore ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya dimuqraadiga ahayd waa ragii halganka inta badan ka soo qayb qaatay waa Puntland cusub dhismaheeda ragii hadda ka qayb qaatay buu ahaa madaxweynena ka soo ahaa isagana mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inagana sabir iyo Allah naga siiyo isagana Ilaahay ha u naxariisto aad baad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi.